maanta barnaamijka aynu isugu imaanay waxay ahayd sidii tayada iyo tirada iyo maalgelinta iyo dhinac walba looga dhisi lahaa waxbarashada in general way tahay laakiin gobolka Banaadir baa hadda focuska la saaray gobolka Banaadir waa caasimadii dalka waa magaalada ugu weyn dalka waa magaalada oo Soomaaliya oo dhan xarunteeda ay ku urursan tahay haday iyadu hagaagto dalku uu hagaagay bay ka dhiganta hadii magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir uu hagaago Soomaaliya way hagaagtay haday dagaalada weydo dagaalkii wuu dhamaada haday dhaqaalaheedu wanaagsanaado dhaqaalihii dalku wuu wanaagsanaada hadii aqoonteedu wanaagsanaato aqoontii dalku way wanaagsanaato ma ahan dadko dhan inta soo guuro inuu Muqdisho soo dagayo ma ahan Muqdisho inta lagu kala fiigo oo lagu kala cararo in maaragtay meel yar oo degmo loo bedela hadda waa meeshii historygeenu waa Muqdisho historygeenana inaynu khaladno oo inaga qalloocdo ma ahan waxaan soo dhaweynayaa dadaalkii faraha badnaa iyo effortigi meeshan lagu bixiyay waxaan mahad uga celinay oo raggii iga horeeyayna ay runtii u mahad celiyeen dadkaas soo shaqeeyay barnaamijkaanuna kii ugu horeeyay uguna dambeeyay maaha uu soconayaa waa inuu socdo aynuna ku dadaalno inaynu dibaddanti aynaan ku noqonin inaynaan ku xirnaanin oo inaan mar walba hoos joogin NGO iyo qolo ina maal gelinayso oo shirarka inoo qabanayso oo workshopyada inoo qabanayso oo maxaan ku yiraahdaa seminaarada inoo qabanayso maalmaha kamida oo waliba dhaqso badan hadaynu nolol iyo horumar iyo wanaag rabno waa inaynu gaarno inaynu inagu waxeena samaysano inaynaan kharash ka fakarin in qof walba qadadiisa hore u soo qaato ama kaasha u soo qaato ama maxaan ku yiraahdaa geedkan isku dadaboolo hore ugu soo qaato oo meesha ku cunee laakiin qalinkiisa iyo buuggiisa yarka iyo wixiisa uu hore u soo qaato si ay suuragal u noqoto annagoon cidna marti u ahayn inaynu shaqadeena qabsano shaqada runta oo markaas ay qabsoomi kartaa dalka kanu dal wuxuu ahaa dunida saddexaad marka loo eego horumarsan gaar ahaan waxbarashadiisa 72% baa dadka wax qori jiray waxna akhrin jiray maantana estimationka cusub oo la sameeyay 8% kaliya wax qortaa la yiri oo wax akhrida sababtu waxa weeye generationkii hore wuu baxay wuu waweynaaday wuu dhintay generationkii dambe oo soo baxayna waxbarasho ku filan ma helin inta jaaniska iskuulada haysataa jaaniska iskuulada yeesha waxbay qoraan waxbay akhriyaan laakiin malaayiin dhalinyaro yaan fursad iskuul helin ama qori baa loo dhiibay oo dagaal bay ku jiraan ama waxa weeye meel kale ku silicsan yihiin ama baadiye iyo xoolihii bay la joogaan wax ma qoraan wax ma akhriyaan ilaan kiiskan meesha u fadhinay waxbarashadu ahaa magaalada waxa ka jiray 32 iskuul oo technical dugsiyo farsamo oo dadka profession rasmiya kaliya u sameeya waxa jiray dhowr iskuul oo midkan dheer oo hadda inoo dhawo polytechnical la oran jiray uu kamid yahay mid kale oo industry la oran jiray industrial oo Cabdicasiis ku yaal uu kamid yahay mid Jarmal ku sameeyay oo hadda meesha xirada Jarmalka la yiraaho oo ay sameeyeen oo iskuulo farsamada gacanta iyo electricity-ga iyo mechanic-ga iyo waxyaalahaas quseeya waxa jiray kuwa beeraha ah waxa jiray kuwa xanaanada xoolaha ah waxa jiray kuwa caafimaadka waxa jiray mid isgaarsiinta ah waxa jiray saasoo miiran bay ahaayeen iskuuladaas oo dhan waxay u shaqeynayaan dhalinyaradu inay
scaled noqoto macnaha qofkii maalinkii uu waxbarashada dhamaysto in uu noqdo qof inta shaqo taga berri subax wax uu yaqaano ku shaqaynaya